Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carti ayaa si qiiro ku jirto u tilmaamay waxa looga baahan yahay Soomaalida maanta iyo dhibaatadii laga soo maray xurriyadda aynu maanta ku naaloonayno. waa maalinta noqonay maxaa Soomaaliyada aynu maanta doonayno raadinayno waa maalin maaha maalin intaas oo qof baa u dhintay intaas oo maxaa la yiraahdaa hantiya ku baabaaday waxay ahayd maalintii uu ka sarkaalka marka la yiraahdo nooga gool calaamadii maxaa la yiraahdaa uu sitay ama noqdo xisbiyadii ee la yiraahdo nooga gooy ka gooyo leeyska uu ka gooyo halka jirkiisa uu ku tumeeyay si uu tuso inay soo jirka leeyahay leeyska hadii dawladdu leeyahay oo maalinta ra'iisul wasaaraha marxaatiyan waxa koow ka ahaa oo aad moodaa inay iska ahayd chance maanta garteena kamid ah calanka la saaray shaqo kuma inaan lahayn calanka waxa sameystay koonfur dhowr iyo afar kontiga ay sameysteen waxba kuma inaan darsan calan inaga inoo gaara kii SNH iyo kii NUF iyo kii USB iyo mid aynu dhig waxa laga daran mu jirin haday taas dhici lahayd maanta waa inaan kala baxran imanka oo waxa loo raaca calankaas uu keen jira oo inaga calmad isku samaysanay horta calankoodu ila noqdeen kii aanu samaysanay Soomaaliland ee heshiisku aynu ka saaran ilaahay baa ku qoran lama dajin karo horta taas waxaan u sheegayaa marka leeyahay calankii buluuga ahaa iyo calankii ay qoladan xamar xalay kor basaareen ay lahaayeen 26 baan ku xusanaa xamar laga saarayay waarday shaqo kuma leeyna koniya afar iyo kontonkii cawaala idin sameeyay waxba kuma aan darsantay baa leedahay buuha oo taanigi dawladda hoose ku qaateen waxa la mid ah calaamadda labada shabeel midna shaqo kuma inaan lahayn maxay nugu yeelan weeyeen waa waxyaalaha inagu caay jireen ay oran jireen Soomaaliland waa waalayeen faratel saddexda af ay oran jireen waa walaalkii wallahi fududa kalgacaylkii iyo isu dhiibidii shanta Soomaaliland doonayaan isku dhiibay ee aan ku yiri anigu waxba doonay Soomaaliland shan midowdo ee ka hadlaysan inuu ku ururo ayaa markaan xamar tagay caay ugu noqotay kolkaas caaydi laga hari waayay markaas gacan la qaaday markaas diyaaradii u garaacay markaas maateeda la xaqay markaas xalay xasan sheekh doonaya inuu yahasaaniga oo hada blue baan saaraya war waxaas waxaan isugu imanana maaha calankiisa waa loo kala ilaahay ku qorayahay calanka waa macnaynaa kan bal macnaha ku fadhiyo dadka sheego xaq hoose waa dhiig inta sheegtay jimcada quruna xitaa konton kun oo qof oo sibila ku dhintay aan ahayn ciidamadii iska dhaafinta ciidan ku dhimatay iska dhaafinta qaxday 800 sano ummadan hanti ay lahaydna way ku dhamaatay leenka askaas sheegaya waa Soomaaliland oo dhan waxa kale uu sheegaya kii ka horeeyay SN waa halkankii daraawiishta Soomaaliland way ku dhamaatay waa halkii ka soo bilaabay waxa ku xigay kii Sheekh Bashiir iyo waadada waxa ku xigay kii SN USB calanka qaybta halkaas ay sheegaysaa dhinaca dhexe waxay tilmaamaysaa nabadii loo soo maray dagaalkii ka bacdi waxay sheegaysaa dhisi qarannimada ee cudurka soo qayb gashay waxay sheegaysaa walaalnimadii ay walaaloobeen bari ilaa galbeed ummadda Soomaaliland ka sare ee greenkii waa kaynu imka u taaganahay oo horumarkii waa tacabkii waa barwaaqadii waa waxbarashadii xidigtii cadaydna waa tibado saasay ku dhimatay saa loo madoobeeyay ayaa ku dhimatay ayaan gurigan reexay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh